حاجة حفيز كعافمات جودهان حفيز كعافمات وربحنا وقروح بدن وسوج جدير نهانتي KPI جيسيو component كيس وودا مسترنا دور قدوم باندول مري حاجة سؤالها adeeg bixinta iyo tayada goobaha caafimaadka hospitaalada iyo health center health poster waxaa jirta si guud in si sinaan loo hirgelin adeega caafimaadka oo dhameystiran health center standard service-ka halkee buu marayaa hirgelinta isbedelka xarumaha caafimaadka marka loo eego Ethiopian Health Centers Reform Guideline qodobka xiga sidoo kale waxaa jira dhowr health post ama inta loo sameeyo upgrading oo loo aqoonsado second generation health post laga dhigi kara baa jirta taa xafiiska maxaa hortaagan isla halkan dhowr health center ee u baahan in primary hospital loo upgrade gareeyo iyadoo la raacayo standardka lagu talagalay waxaa best example ah Jarati Health Center tala bixinta sagaalka biloodna arrintan waa soo dhignay run ahaantii Jarati Health Center coverage service ka ay bixiso same as hospital laakiin service ka ay meesha ka bixiso iyo catchment area ay ku fadhido run ahaantii in primary hospital loo upgrade way u qalantaa dhinaca MCH ka waxaa jira tirada dhalmada ay sameeyeen xirfadlayaasha TB ama trained death attendant loo yaqaano ay ka dhaliyeen iyo kuwa ma aragtay xirfadlayaasha caafimaad ka dhaliyeen oo kuwa trained attendant ka dhaliyeen kuwa trained attendant ka dhaliyeen baa ka badan marka xagga xirfadlayaasha caafimaadka marka inay bixiyaan baaheed wacyigelinta xilliga ANC follow up ka dataga xafiiska markaan u laabano 2014 coverage-ka wuxuu marayaa 47% still 2016 kana wuxuu marayaa 47% waa stagnant weeyaan dhowr xarumo caafimaad oo functional laga dhigana way jiraan marka maxay ka dhigan tahay marka xirfadlayaashu inay arinta ka gaabiyeen totally-ba arinta kale morbidity rate-ka xagga dhalmada kadib ka deegaan ahaan halkee marayna ka xafiis ahaana si loo yareeyo maxay idin qorshaysan qodobka xiga 18 xirmood ee laga bixiyo dhammaan rugaha caafimaadka tira ahaan dad badan baa ka qalin jibiya laakiin waxaad arki qabalayn ka badan ka qalin jibiyeen 200 oo qof 200 oo qof ay leeyahay laakiin qabaleegaasi wax suuli ama latrine construction component ka kookaana waa latrine construction 18 xirmood marka waxaa totally ba meeshaas ka baxay primary health care component giisa kooka preventive ka iyo curative iyo promotion ka arinta kale dhanka nutrition ka deegaan ahaan ama ka dalahan gamret according to WHO national guideline idinkoo raacaya ka deegaan ahaan gamretken waa imisa samretken waa imisa ka deegaan ahaan samka laba loo kala qaadi with medical complication iyo without medical complication baa loo kala qaadaa redkeni inaan ogaano weeyaan ka deegaan ahaan taana warbixintooda kuma caddo mamretka the same waa imisa in maaragtay ka deegaan ahaan redkeni inaan ogaano inay noqoto alarming ama inaan qaabka u kala ogaano isla nutrition ka sustainability programka nutrition ka ka deegaan ahaan aad buu hooseeyaa sababtoo ah inta ugu badan barnaamijkan nutrition ka waxa gacanta ku ah hay'adaha ka howlgala xarumaha caafimaadka immediately hay'adaas xarunta marka project markuu phase out ka noqdo ama ka dhamaado programkaas ma soo soconayo halkaas uu ku fail garoobaya marka ka xafiis ahaan mas'uuliyadda ka saaran in programka sustainability la ilaaliyo waayo supply UNICEF ba supply gareeya waana la haya marka teamka ground jooga xirfadlayaasha caafimaadka programkan aad bay ka gaabiyeen especially iyo waxdan nutrition ka qaabilsan qodobka xiga Sokoto declaration deegaan ahaan 10 degmoon buu ka shaqeeyaa barnaamijkan halka deegaanada kale like Oromia in ka badan 90 degmo ka shaqeeyo marka maxaa hortaagan xafiiska caafimaadka inuu ballaariyo barnaamijkan maadaama uu maaragtay matching fund lagu helayo xagga mashaariicaha markaan u gudbo wax difference ma jiro inta ugu badan waxaan xagga tayada ka ahayn isma khilaafsano laakiin mashaariicahan dhamaanin iyo qaar taagan oo xagga tayada Dudahida Health Center
mashruucan uu taagan yahay baahi weynna waa loo qabaa qayb ka mid ah waxaa la saaray geed jiingadna lama saarin roobna way ku da'ayaan mashruuca ma laha deer ama meel amni fiicanna kuma yaallo mashruucan tayo ahaan aad buu liitaa maadaama horey loo gubay oo ka muuqda dabkii Galoon Health Center dhaliisha ka taagan mashruuca uu taagan yahay baahi weynna waa loo qabaa mashruuca ma lahan wax deer xitaa boosaneerada suuliyaashana midna ma dhisayn lama dhisin dayactirka hospitaalka darajada koowaad ee maamulka qabradaar taas kuma khilaafsano xafiiska uu soo dhigay qabradaar General Hospital expansion is the same cusboonaysiinta guryaha shaqaalaha caafimaadka ee degmada Lagahida mashruuca aad ayuu ugu dib dhacay waqtiga loogu talagalay muddo 4 sano ayuu taagnaa walow hadda uu socdaa mashruucaas mashruuca suuliyada lagama dhisin wax suuli oo laga dhisay ma jirto deerna ma lahan mashruucaas tayada mashruuca Haraburo may muluqo tanna xafiiska isku ma khilaafsano waxaan tayada ka ahayn xagga tayadun baan isku khilaafsanahay dhismaha xarunta caafimaadka magaalada ee degmada may muluqo mashruucan wax shaqo kama socoto uuna taagan yahay muddo bil ah hadda si bilaaban xafiiska iyaga noo sheegi tayaahana xagga daaqada maaragtay qalqalooc baa ka jira xagga maaragtay cabirka lama raacin mashruuca dhameystirka dhismaha xarunta dayax 70 kilomitir waa magacaan u maleyn 70 kilomitir mashruuca waxa ka jiray dhaliilo sida albaabada lagu xidhay oo durba jajabay taasina cadeyn u tahay inay tayadoodu hooseysa okay mashruuca dhismaha xarunta caafimaadka Xoore dhismaha xarunta caafimaadka Xoore gabi ahaan wax shaqo kama socon xilligii kormeerka lagu tagay sidoo kale mashruucan uu taagan yahay muddo 13 bilood mashruucan waxa ka jira dhaliilo dhanka tayadiisa aad u hooseeya sababtuna in badan dildilaac halka ee mashruucan gabi ahaan ba dayacan yahay Galoon Health Center xafiis inkastoo uu sheegay mashruucanna uu taagan yahay wax shaqo kama socoto muddo 3 sano mashruucan design ahaan ayaa la isku haystaa oo design-ka ka qaldamay sida warbixinta maamulka degmada ay sheegeen xafiiska caafimaadku waa ku dhaqanka adeeg bixinta tayo leh boqolkiiba waa 35 meeshii laga baahnaa 22 ku dhaqanka mabaadiida adeeg bixinta 22.5 heerka qanaaca macaamiisha bishii 10 laga baahnaa 6 nidaamka xalinta cabashooyinkana 20.13 marka 60.5 weey kaalinta muxuu ku jira 14aad iyo ku jira caafimaadku shaqada ugu wanaagsan ee ku dayashada mudan leh xafiisku xafiis ahaan waxa xagga kaisanka shaqooyinkii aan la bilownay meena joojino xaqii bay ka sii wadaan marka waa arin bogaadin mudan ka xafiis ahaan xafiisyada hoos yimaada waa xafiiska ka hortagga iyo xakamaynta HIV/AIDS-ga xafiiska ay boqolkiiba isaguna waa 56 way ku dhaqanka adeeg bixinta tayale waa 19 ku dhaqanka mabaadiida adeeg bixinta waa 24 heerka qanaaca macaamiisha waa 3 nidaamka xalinta cabashooyinka waa 10 way marka 6 iyo 50 boqolkiiba way daakana waa 18 ku dhaqanka adeeg bixinta tayale 17.5 ku dhaqanka mabaadiida adeeg bixinta iyo qanaaca macaamiishu waa 2.5 waa xafiisyada ugu liito ka dhigan iyo kamid yahay xagga qanaaca macaamiisha daraasaadkii lagu soo sameeyay marka boqolkiiba 46 xagga nidaamka xalinta cabashooyinkana 8 marka boqolkiiba 46 way karamara hospitalna iyagana saysalaya lagu soo sameeyay bay ahayd isagana qanaaca macaamiishu aad iyo liita laakiin xagga ku dhaqanka adeeg bixinta iyo ku dhaqanka mabaadiida adeega dawladdu way dhaamaan adeeg bixinta caafimaadka reformigii kadib isbedel muuqda ayaa laga arkaa xafiiska iyo hospitaalada laakiin haddana waxaa caqabado jira hospitaalada qaar siiba iminka matalan qolalka oo ku yaryar
dhoktaradu hal qol 3 qof ay ku fadhiistaan xilliga kuwa fiiq iyo nogoba hal qol bay 3 dhoktar ku fadhiistaan xilliga taa 9 bilood horena waa la soo dhigay head xilliga haddana wali caqabadii way taagan tahay haddana fiiq hospitaalka fiiq lafteeda guryuhu aad ugu yar yahay dumarka iyo ragga meel qulaata iyo adeega lagu siiya xilliga taana lafteeda ina macnaha aad caqabada nigu hortaagan inaad noo faahfaahisaan ta kalena waxaa jira liibaan iyo afdheer oo waliba shaqaaluhu galin qulaata ay shaqeeyaan 9 bilood horena haddana waa la soo dhigay head still wali caqabadii lama furin xilliga bulshadeena aad bay ugu dhiban yihiin macnaha adeega ay ka helayaan hospitaalada iyo health centerada xilliga taana inaad wax ka tiraadaan yaan rabay ta kalena dawooyinka xuduudda ka soo gudba iyadana lafteeda caqabada iyo lafteeda ka jirta still dadkeena dawooyin expert ay wali isticmaalaan oo farmasiyada lafteeda lagu iibiyaa xilliga kuwana dabagal inaad ku sameysaan ayaa muuqata haddana laakiin caqabado fara badan ayaa ka jira ta kalena xarunta caafimaadka ceelweyn leerka iyo biyuhu ku yar yahay xilliga dadaal fara badan idinkoo sameeyay haddana leerkii iyo biyihii caafimaadka ceelweyn xilliga taana inaad wax ka tiraadaan ayaan rabay ta kalena dawooyinka aad soo iibinaysaan lafteeda 100% yaan ka dul arkayay reportka laakiin haddana degmooyinka marka la fiiriyo oo aad weydiisatay kormeerka marka lagu sameynayo caqabadaha fara badan ay ka sheegtaan waxa weeye waa dawooyinka waqtigii la rabay ana soo gaadhin ay ka cabtaan iyo haddana qalabka ay hospitaalada lafteeda degmooyinka ay kormeerka markaan sameyno iyaguna laftooda ay caqabada ay ka sheegtaan xilliga waxaa iyo xafiiska madaxweynuhu markuu kormeer sameynayay ku arkay waa dhamaasantiin ihirga waa reformiga xarumaha caafimaadka ah loogu talagalay in adeeg bixinta ay bixinaan ay tayeysnato 89% baan soconnaa hadda koorna waan soo gudbinay kan kale Ethiopian guideline kale reform loogu talagalay xarumaha caafimaadka tayintooda leadershipka iyo adeeg bixinta loogu talagalayna 90% baan soconnaa reportigana way ku caddahay si guud rugaha caafimaadka ama health postada loo yaqaan ee deegaankeena ka jiray waa 1532 intaas markaynu qaybino 1316 waa rugihii caafimaadkii soo jireenka ama basic loo yaqaano ee dhowrka guri ay hadda ku hor jiray 58 rugihii way ka soo guureen comprehensive-kiina ma gaarin merged baa la isku dhaha meesha horan way ka soo yar ballaaran yihiin adeegay bixinayaan xirfadlaha tayadoodu iyo adeegu iyo tamartoodu way ka soo guureen comprehensive loogu talagalay maadaama inay soo gaarin merged baa la isku dhawa 58 inta comprehensive-ka ah ee design-kii cusbaa ee 2013 wixii ka dambeeyay la sameeyay waa 158 si guud sidaas ay noqonayaan daatada ka jirta halbeegyada si guud waxaan rabnaa in faanis la qaadano kow sektorka caafimaadku waa sektorka kaliya ee anagu intaan ognahay aanan manipulation ama faragelin lagu sameyn karin xogta laga soo gudbiyo xarumaha maruuga caafimaadka maadaama online directly loo geliyo hadda waa la eegi karaa inta aan ka taaganahay indicator kastaba ama halbeeg kastaba rugaha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka dadka ku dhalay 52% buu taagan yahay 5% baa use bedilay 5% waa huge difference sababtoo ah coverage-keena meesha aan taaganahay rugaha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka kuwa ugu daran 67% iyo 67% aan taagan 28% oo deegaankeena kamid ma helaan wali coverage muunan gaadhin rug caafimaad ama xarun caafimaad hooyada ku dhali karto dadka markii hore ee training barta atlantic la tababarna ama TB la tababarna fikirku iyo fikir ma aragtay loogu tala galay wuxuu ahaa in hooyadaas ay soo kaxiyaan xarunta caafimaadka ay keenaan ay gargaaraan ma aragtay taakuleeyaan waqtiga ay dhalayso
shaqada waa shaqo dhamaantii baynu taal deegaan gobol iyo degmo maadaama oo la rabo hooyooyinkan xarumo caafimaadka ay ku dhalaan waa meelaha mudnaanta gaarka aan siino kormeerka marka la tagayo tababarka marka la bixinayo tababarada ugu badan iyo kormeerada ugu badan ee xafiiska ka baxay hooyooyinka dhallaanka saaran yihiin laakiin waa la dareemi karaa meeshaan ka soo guurnay data waa la qurxin karaa datada laakiin anagu halka uma soconin data la qurxiyo meesha dhabta in taaganahay in la helo kadibna sidii lagu kubcin lahaa ee hooyo kastaba markay xaamilo tahay markay naas nuujinayso iyo marka ay dhashaba ay ku badbaadaydo in la sameeyo muhiim taana uma dartay waxa ka jawaabayaan isleenahay siyaasadda u taala sektorka caafimaadka 18ka package marka la tababarayo dadkan waxa lagu abaabulaa marka la tababarayo oo laga dhaadhiciyaa in ay noqdaan model household ama dad lagu dayan karo qofka qalin jabinayay waxa laga rabaa hadhow inuu ilmihiisa iskuul geeyo xagga iskuulka uu ka taakulayo nadaafadii uu ku dadaalo suuligii uu dhisto hooyadii ilmihiisa maarata uu tallaalo gabadhiisa xarunta caafimaadka ay ku dhasho sidii loo baahnaa meelaha qaar wax badan baa ayaa inaga kala daadsan dibadku saxroowga stiil uu ina haystaa oo ODF-ka wali maarata meeshii loo baahnaa maanan soo gaadhin dadaal badanna waa la wadaa laakiin waa meelaha aan isu leenahay dadkii aqoontii way gaadhay laakiin hayntii iyo dhismihii maadaama wali u taagan yahay waan ku dabagaleena laakiin meelaha qaar stiil dadka ay hayntooda hooseyso ama partnerada ha noqdaan ama hay'adaha nala shaqeeya yaa lagu caawiyaa in u dhisaan suuliyadii la wada wadaagay ama public toiletka loo yaqaan Socotaa declarationka nutritionka mashruucan waa mashruuc heer dal ka socda markii la bilaabayay waqooyiga Itoobiya laga soo bilaabay laba deegaan kaliya ka faa'iideysan jiray deegaanka Xamarta iyo deegaanka Tigray deegaan ahaan wuxuu halkan yimid waa 2014 sagaal degmo ayaa maaragtay lagu bilaabay si tijaabo oo kala sagaalkii degmo hadda afar degmo kala ku soo beertay 13 bay noqonayaan laakiin in la kordhiyo oo tiradan kor loo qaado kaliya wax xafiis kale ku xidhan ma maamulkii xafiiska iyo wasaaradda waa inay wada fadhiistaan halka degmo halkan ku soo kordhay deegaanada kan waa inay ku kordhay maadaama distributionkiisu la garanaysa lagu qaybiyo inagu halkii loo baahnaa iyo shararkii loo baahnaa iyo wixii loo baahnaa mar kasta tababarkiisa waan dhameystir lacagtii loo baahnaa markay wasaaradda ay ka imato directly waxa loo diraa xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmooyinkeen iyaga lacagta isticmaala wixii loogu talagalay sagaalka xafiis ee Socotaa declaration xafiiska caafimaadka kale tooma yaal sagaal xafiis oo bahwadaha ka wada shaqeysa xafiiska caafimaadka xafiiska biyaha xafiiska waxbarashada xafiiska beeraha xafiiska arrimaha haweenka xafiiska arrimaha bulshada waa wada garanaya lacagtaas hadda meelo badan wax badan bay ka bedeshay isbedelkii markii la arkay sanadkan 2015 gabagabadiisi afar degmo dheeriya lagu soo kordhiyay laakiin kordhintaasi wax inaga kala tahay nagu xidhan inuu nahayn in isla faanaan raba nutrition assessment-igi gaamka iyo saamka iyo mamredka hadda teamku maadaama maqan yihiin oo periodically la sameeyo haddii aan kii hore aan sheegno xogaa outdated buu noqon karaa marka teamku maadaama hadda ay maqan yihiin marka la soo noqday yaanu shaacin haddii la yiraahdo dhanka shaqaalaha ama xirfadlayaasha caafimaadka xarumiyana ka hawlgala rugaha caafimaadka inay ku kooban yihiin anuguna waan ogna laakiin challenge-ga yaalla waxa weeye xirfadle caafimaad markuu soo qalin jabiyo ilaa meel hebel baa lagu meelanaa degmadii waxay soo qoraysaa deficit baan taaganay ma qaadan karo degmo kasta oo rug caafimaad ku yaala ama xarun caafimaad ku taala oo shaqaale qaadan karta shaqaale waa loo heli karaa laakiin miisaaniyad ahaan challenge kale maadaama uu ka taagan yahay haddeen intaan isla fahanno wax dhib lama jirto dhanka kale laakiin marka la eego rugaha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka iyo hospitaaladaba sanad waliba dhowr kun oo shaqaale ayaa ku soo kordha inta waxaan uga gol leenahay xirfadle kasta oo deegaanka looga baahan yahay baahidiisaas inuu daboolo in haddii miisaanadu ay maaragtay ay saamixi karto in lagu shaqaaleysto tusaale ahaan 11 xarun caafimaad ee qalliinka bixiya ee hadda adeega ku jiray hal degmo oo mishaar bixisa ma jirto xafiiska caafimaadka bixiya anagoo kaashanayna xafiiska maaliyadda intaan waxaan uga gol lahayn qalabkaas iyo xirfadlaha iyo waxa dhan hoos loo dhaadhiciyay haddii mishaaradii ama gonadii looga baahnaa habeenka ee duutiga ay degmadu bixin kar weyd adeegaas unan u joogsanin waxaan la xajoon xafiiska maaliyadda lacagtii baa loo qabtay hospitaalada ku dhow baa loo mariyaa tusaale ahaan xarunta caafimaadka Shilaabo qaliinka way bilood adeegii way bixisaa mishaarada laakiin ustaadka qabidaar baa bixi si aanan iyada dhibaato ugu noqon booq adeegii way bixisaa xirfadlihii uu jooga qalabkii oo dhameystiran baa jooga mishaarada loogu talagalay xirfadlayaasha halka jooga maadaama degmada booq ay bixin kareenin ustaadka war dheer baa bixi maadaama halka loo dhaxmariyo dhammaantood saas ku shaqeeyaan intaan waxaan uga gol lahayn maadaama markaan isla fadhiisan xafiiska maaliyadda
challenge ka jira ama culayska haysta degmooyinka aynan xallin karin gunnada ninka specialist ku takhasus hooyada iyo dhallaanka marka la geeyo gunnadiisii iyo mishaaradiisii marka la isku daro ay 70,000 80,000 gaadhay degmada ma bixin karayso haddii adeega aan la geynin hooyadii ma badbaadayso so option kan wuxuu haasaan dhimashadana loo yareeyo hooyaduna u badbaado adeegiina u kobco xarumaheenina ay noqdaan kuwa diyaar u ah berri ka maalin haddii darajadooda la kordhiyo hospitaal ay noqdaan meelo nidaamkoodu si diyaarsan yahay in adeega hadda lagu bilaabi karo sidii kaste noogu habboon xaruntii ugu horreysay laga bilaabo 2011 oo barahay laakiin xarumii kale in la gaaro hal degmo ayaa challenge noqotay maadaama mishaarada heer deegaan laga bixiyay hadda waa la xaliyay 12 kale way shaqeynayaan marka taasna inaan saas kula qaadano yaan jecelahay dhanka mashaariicda wixii aan xallin karnay sanadkan ee miisaanadu ay fasaxaysay dhammaan mashaariicii waan dhameystir intii miisaanadu u fasaxaysay meelaha qaar hakad baa ka jira waan ogsoonnahay tusaale ahaan gaalloon oo kale waqtigii loo baahnaa dib bay uga dhacday laakiin qofkiina miisaanadii loogu talagalay haddii uunan heli karin canaanashadina adeeg bay noqonaysaa laga hidda hadda ka hor reportiga ku jirta in isha lagu dhufan baa dhici karta xarunta caafimaadka qaybta bukaan jiifka ah guriga uu kala dilaacmo labada dhan buu kala maaragtay u kala jeeday kii waa la iska daayay guri cusub oo bukaan jiif oo dhammaystiran ba hadda loo dhisay 90% buu socdaa waxaana rajaynayaa bishan hamle inuu dhammaado oo dadku ay ka faa'iideystaan xarumaha caafimaadka degmada mayo muluqo magaalo cad iyo harabura xogaa isqabqabs dadka dhexdooda u dhaxay baa jiray sababtoo ah maadaama qolyaha xarumahaas ay kala badnaayeen oo xarun caafimaadna ay wadatay qolalka loogu talagalay shaqaaluhu inay jiibsadaan qolna ay lahayn dadkii markay soo tirsadeen in kan uu ka badan yahay kan kale labadii dadkii baa isku dhacay in la xalliyo qasab baa noqotay dib baa lagaga daray hadda labadii xarumo caafimaad inay yeeshaan guryaha shaqaaluhu ay jiibsadaan laadoo hadda meel fiican bay socdaan bisha 12 inay nagu gaadhin inaan rajaynaa qalabkii loogu talagalay federaalka waan ka soo mobilize gareynay xafiiska caafimaadku yaala immediately maadaama labadaba ay kala socdaan 380 iyo 580 marka saa u dhamaadaan bisha 12 gabagabadeeda shaqaalaha iyo qalabka in la geeyo adeeg loo baahnaan hadii ilaahay saad ku bixiyaan xarunta caafimaadka Madaweyn waa xarumihii taagnaa qandaraaslihii wada uu si loo baahnaa u wadin dib baa laga bixiyay hadda final stages 190 bay socotaa waxaan rajaynaynaa bishan anagu waxaan balantaas kala qaadano qandaraasla waxay bishan 30 u dhameystiro laakiin xogaa dib u dhac baa jira laakiin hamlana lama dhaafayso dawladda in saas iyadana loo qaato yaa muhiima dayac boqolkiiba 88 bay socotaa hadeerna waan ka dhawaajiyay wax yar baa u dhinaa bishan inuu payment helayd laakiin paymentkii bishan maadaama heli kari waayay xogaa bisha dambe inuu dhamaado yaan rajaynaynaa hospitaalka biki guddigu markii ay ku maqnaayeen kormeerka leydkii transformerku maadaama uu gubtay generatorka uu shaqeynay waa dhab laakiin waa la xaliyay lacagtii loo baahnaa waa loo shubay transformerkii waa loo geeyay anagu intaan ognahay uu shaqeeyaa transformer cusub baa loo geeyay waliba intaan ognahay uu shaqeey marka kaana saas kula qaadana muhiima dhanka su'aalaha wixii tala bixinaysan ku qaadanaynaa dhanka daawooyinka deegaankeena soo gala labaan u kala qaadi karna daawo waa dooyinka IPSA ay keento ee federaalka FDA gu soo approve garay halkan la keenay daawooyinkaasi annagu 0% concern kama qabna tayadooda iyo madartay meesha ay ka soo bixin loogiya maadaama oo clearance wadanka ay ku soo galaan oo iyagoona aan tayadooda la xaqiijinin halkii lagu sameeyay tayadiisa side effectgiisa dhibaatadu keena aan la ogeyn wadanka uu soo galeen concern kama qabna laakiin deegaankeenu maadaama 200 kilomitir ka badan uu baaxad leeyahay wadamadan badda ku teedsan daawooyinka aagan ka soo gala aad buu u dhibadan yahay tayadoodana lama xaqiijin karo hadda ka horna waynu ka wada hadalay guddi baa loo saaray komishanka booliska wakaalada maamulka iyo dabagalka cunnada iyo daawooyinka xafiiska ganacsiga in goob kasta oo lagu arko dawo tayadeeda aan la xaqiijinin in goobtaana la xisaabtamo sharciga la tiigsado dawo kasta oo xuduudda Soomaaliya ka soo gashay waa sharci darro deegaanka ma soo gali karto meel kasta oo lagu arko waa in la qabto laakiin godoladaas maadaama ay dhib badan tahay xuduudda oo dhan la xidhi karin inay wax ka soo bixi doonaan inaan saas ku ogaano baa muhiima helidooda ama stock on hand marka la eegayo maadaama dawadan marka la soo iibinayo wadanka dibadiisa laga keeno lacagta dollarka loo baahan yahay wakaaladana inay lacagta hesho waa inay kuyuga caadiga lagu talagalay hesho ay raacdo marka wax mar kastiba xoog la saaraa dawada essentialka
daruuriga ah ee wadanku u baahan yahay yunan go'in boqolkiiba 90 hadii dibadda laga keenayo waxa la dareemi karaa aanan lacagtii loo baahnaan aan la heli karin stock on hand si loo baahnaa mu noqon karaa waa may haddii aan suuqa ula baxno oo meelaha gaarka loo leeyahay horseelarada laga iibsadana qiimaha u dhaxeeya markuu u yaryahay waa 5 ilaa 6 jibaar xaruntii goyn karta kuwa ugu fiican waxay qabsadaan 1 milyan per year sanadkii hadday 4 xarumood ay leedahay oo quarter loo qaybsho xaruntii waxa ku dhacaysa waa 25 milyan 25 kun zamankan la joogo 25 kun maxay goyn haddii ibsan laga tago soo dana badan baan ku qabanay ibsan in dawada laga qaato mar walba degmooyinka waxa lagu kabaa bahawadaagta iyo hay'adaha la shaqeeya wixii mobilization dawada laga soo heli karo in lagu kabo tusaale ahaan xanuunada emergency oo dhacay u dhan yihiin xafiiska ka fargaray partner mobilization baa laga sameeyay ama federal ha noqdo ama heer deegaan ha noqdo marka iyadan in sida loo fahmo yaan rajayn